بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم وأحمد. waxaan sii wadanaynaa darsigii aan kaga hadlaynay quadratic equations. qaabkii hore qaabaan ahayn oo haddana lagu xaliyo ayaa waxaan rabaa inaan videogan idinku tuso. mithaalkan haddaan fiirino f of x waxay la mid tahay 2x square plus 4x minus 1. mar walba waxaa ogaataa f of x haddii lagu yiraahdo iyo haddii lagu dhaho y lagu yiraahdo waa isku mid. Okay, hadda eedaydani waxay la mid tahay 2, b-dayda waxay la mid tahay 4, c-na waxay la mid tahay minus 1. Okay, ani marka waxaan rabaa inaan meeshan aan soo saaro vertexiga iyo axis of symmetry labadaas inaan soo saaraan rabaa. anoo dariiqadii markii hore aan adeegsanayay aanan adeegsanin baan waxaan rabaa inaan soo saaro. sidee ku soo saaraysaa? waxaa ku soo saari kartaa laba dariiqaan rabaa inaan ku tusiyo. dariiqada koowaad ay ku soo saari karto waxaa la yiraahdaa adoo ku samaynayo equationkan adoo ku samaynayo waxa la yiraahdo complete square. complete square-ka ku samaynaysaa kadib markaad xaliso wixii ku soo baxaa marka waxaa ka soo saaranaysaa vertex-ka iyo axis of symmetry-ga labadaas. Okay, tan marka complete square saan ugu samaynaya waxaan leeyahay marka hore waxaad samaysaa tan kaliya intan kaliya waxaa ku samaysaa factor gare caamil mushtarak ama waxaad samaysaa yani taxliil ku samee. saan ugu samaynayo marka waxaan leeyahay maxay wada wadaagaan labadan waxay wada wadaagaan soo maaha. labadan kaliya intan kaliya markaan rabo inaan ku sameeyo factor ku sameeyo labadan waxaa ka dhaxaysa 2 waa u wada qaybsami karta labadooda soo maaha. marka 2da banaanka u bixi. marka 2 haddaan inta u qaybiyo waxay noqonaysaa x square basa soo haraysa plus 4x tan haddaan laba u qaybiyo waxay soo haraysa plus 2x qowska ku xir minus 1 oo banaanka uga baxsan. hadda markaan intaas sameeyo ana marka waxaan raadinayaa marka tanaan waxaan ku samaynayaa intaan gudaha ku jirta qowska ku jirtaan waxaan ku samaynayaa marka complete square qaabkii ahayaan ku samaynayaa. see ugu samaynaysaa complete square markaa ku samaynaysa waxaa lagu sameeyaa kan b soo maaha b-dan oo loo qaybiyey laba loo qaybiyey wixii ku soo baxay oo la square gareeyey ayaa lagu daraa geeskan la dhigaa. marka waan ku tusinayaa saan u samaynayno. labadan banaanka ha noo taalo waxaan leeyahay x square-ka sideeda usoo qaado plus 2 markaan laba u qaybiyo maxay noqonaysaa 2x kan iska soo qaado sideeda usoo qoro laakiin 2 markaan laba u qaybiyo maxay noqonaysaa waa hal haddaan square gareeyan muxuu noqonayaa waa isla 1-ki. marka waxaan leeyahay plus 1 isla markaana waxaa ka jartaa plus 1 soo maha cagsigeeda ka jar marka oo ah minus 1 waa minus 1. intaas waa complete square-kii aan rabaa inaan ka soo saaro. kan gooni u dhiga marka kii kale c-daadi mar walba gooni u wada. way aan qowska u gelinayo qowska waxaan u gelinayo waxay tahay because 2-dana marka kulligood ku wada dhufsan waa taas saas awgeedaan u samaynaya. haddayna 2-dan meesha ooli lahayn qowskan ma geliyaan. midda kale waxaa ogaataa haddayna 2-dan meesha ooli lahayn ma u baahnaaneen inaan qowsaskan iyo sidaan hadda aan samayno toosaad waxa u samayn lahayd complete square-ka u samayn lahayd. okay, waxaan leeyahay sideeda usoo qaada haddana equal 2 sideeda u qoro. marka waxaan rabaa marka laga reebo kan color kale aan ka dhigana bal minus 1-kan minus 1-kaas marka laga reebo intaan kale waxaan rabaa marka inaan fiiriyo laba tiro haddaan isku dhuftay siinayo 1 haddaad kala jarta ama isku dartana ku siinayo 2. hadda waa isku dar waay marka laba tiro haddaan isku dhufto 1 isiinayo haddaan isku darana 2 isiinayo waa 1 iyo 1. marka waxay noqonaysaa waa x plus 1 iyo x plus 1 soo saas maaha.
minus 1 kulligood marka hal qoosay ku wada jiraan oo labadaa ku dhufsan minus 1 kale banaanka uga bixi. Okay, marka labadan waxaan samayn karaa labadan x oo x plus 1 iyo x plus 1 halan ka dhigan karaa. Waxaan leeyahay marka 2 oo square gareeya ayagana. Waxaan leeyahay 2 lagu dhuftay cos for x plus 1 oo square laga jaray mar walba kan bal minus 1 aan ka dhigana color kale kana sidiisa noo ahaado minus 1. Okay, marka hadda waxaan sameynayaa marka labadii aan ku dhufanayaa kuwan gudaha ku jiro. Waxaan leeyahay marka kan haddaan laba ku dhufto waxay noqonaysaa 2x plus 1 square minus 1 kan haddaan laba ku dhufto muxuu noqonayaa waa minus 2 minus 1. Okay, waxaa sameysaa marka hadda labadan isku darso waxay noqonaysaa 2x plus 1 square labadan haddaan isku darano waa minus 3 minus 2 iyo minus 1 haddaan isku dartana waa minus 3. Hadda tan waxay u qorantaa formkan iyada iyo tan waxaa isku mid ah formkana isku mid ah a x minus h square plus k. Formkan iyo tan waa isku mid soo maha. Waxaa ogaataa mar walba marka kdan waa y-di fiiri kanna kdan hadda waxay noqonaysaa qiimihii y-da ay ii noqonaysaa. Kan h-tan gudaha ku jirta oo minuska ah minus h soo maha cagsigeedana wuxuu ii noqonayaa xt ay ii noqonaysaa. Marka hadda sidii oo kale tan ku dabaq marka waxaan leeyahay marka vertexka wuxuu la mid yahay vertexka ee la yiri raadi wuxuu la mid yahay labadan point marka tan gudaha ku jirta maxaa waaye waa plus minus h waaye soo maha marka tan cagsigeedaa la yiri tan plus 1 waaye soo maha minus 1 aan leeyahay iyo tan oo ah minus 3 vertexka waa kaas. Okay, marka asagana muxuu noqonayaa excess of symmetry. Excess of symmetry wuxuu noqonayaa qiimaha x-tu noqonayaa mar walba waa minus 1. Labadoodii hadda saasaad ku soo saaratay. Waxaa kaloo ku soo saaran kartaa oo dariiqo kale ah. Waxaad dhihi kartaa h waxay la mid tahay minus b loo qaybiyey 2a. b-deyda aniga maxaa waaye markaan fiiriyo b-deyda waa kowda hore equationkii aad fiirinaysaa lagu siiyey. Kowda hore equationka la siiyey maxuu ahaa waa 4x soo ma b-deyda waa 4 waa minus 4 loo qaybiyey 2 lagu dhuftay a-deydana maxaa waaye waa 2 lagu dhuftay 2 maxaa soo baxaya meeshaan 2 ku dhufo waa 4 minus 4 loo qaybiyo waa minus 1 soo ma jeedi. Waxaan soo saaray meeshii koowaad qaybtii koowaad k-deydina saan ku soo saarayaa k waxay la mid tahay 4a c minus b square loo qaybiyey 4a ku badbedela marka waa 4 lagu dhuftay 2 c-daada waa minus 1 lagu dhuftay minus 1 laga jaray b-daada waa 4 oo la square gareeyey loo qaybiyey 4 lagu dhuftay 2. maxaa ka soo baxaya marka meeshan kuwaanoo dhan haddaa isku soo dardarto meeshaas waxaa kuu soo baxaya lana 4 haddii 2 lagu dhufto minus 1 lagu dhufto meeshan waa minus 1 lagu dhufto minus 1 meeshan waa minus 8 iyo minus 16 haddii laisku daro waa 24 oo minusa loo qaybiyey labadan haddii laisku dhuftona waa 8 waxaa ka soo baxaya minus 3. marka hadda maxaa heshay marka haddana vertexkaaga muxuu la mid yahay vertex wuxuu la mid yahay marka sidii oo kale minus 1 iyo minus 3 labadaas weyba vertexka waa ku soo saaran kartaa. Okay, saan ku ogaanayaa marka qiimihii x ay maraysay roots x-ka saan ku soo saaranaya roots x-ka waxaa ku soo saaran kartaa meeshan markaa maraysaa ka soo saaran kartaa meeshan inta soo qaada waxaad tiraahdaa 2 inta f of x waxay la mid tahay 2x plus 1 square minus 3 tan marka 0 ay la mid tahay
marka waxaad tirahdaa 2x plus 1 square minus 3. Okay, tan wareejiso minus 3dan haddaan banaanku bixiyo waxay noqonaysaa marka waa 2 lagu dhiftay x plus 1 square equal 3. marka x plus 1 square waxay la mid tahay 3/2. waxaan leeyahay marka labada dhinac square root geli, tan iyo tan way isla baxayaan. meesha waxaa kusoo haray x plus 1 waxay la mid tahay plus minus 3/2. x waxay la mid tahay 3/2 minus 1 1kaanaan wareejiyo inta geeyey, or x waxay la mid tahay minus root square root 3/2 minus 1. tan waxaa kusoo baxaysa x waxay la mid tahay 0.2, tanna waxaa kusoo baxaysa x waxay la mid tahay 2.2. marka graafkii markaa sawirto marka muxuu noqonayaa marka graafkii wuxuu noqonayaa vertixkii aan soo helay waxaa waaye waa minus 3 iyo minus 1 soomaha noqdada isugu yimaadaan labadooda waata. graafkeyga kor muu fiirinaya hoos muu fiirinaya, waxaan fiirinayaa eedayda marka waa plus soomaha. eeda markaan fiiriyo equationka ugu horreeya laysiiyey waa plus, maadaama plus yahay muxuu fiirinayaa kor. okay, labada nuqdo uu ka goynayo xta oo rootskana waan sheegnay waa 0 meeshan waaye midna waa minus 2. tan minus aa soo baxay, sorry tan minus waaye. tan marka waxay noqonaysaa meelahaas oo kale, marka saasuu noqonaya. okay, meeshan uu ka goynayo y-da ayadana waxaan niri waxaa ku heli kartaa, waxaad ku bedelaysaa equationka, waxaa ku bedelaysaa meel walba x 0 wixii kusoo baxay noqonaysaa meesha y ka goynayo. mar walba markaan ku bedelo marka meel walba waxaa iisoo haraya minus 1. minus 1 kaanu ka goynaya marka minus 1. marka saasuu noqonaya marka. marka aniga graafkeyga saasuu u sawirmaya. videogan intaasaan ku joojinaya. aad baad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.